بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم درسنا ودرسي سقالات بكميدة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ودرسي ما أنت قبل لابانا يا باب شيخ لي رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. حوري الشيخ رحمه الله تعالى باب من الشرك باب وحباب من الشرك وحاكميدا لبس الحلقة حلقة سلسلة كتينة وحي لميد إن لحرته والخيط دنت إن لحرته أما الليلنكو ونحوهما لبضا وحي لميدا لرفع البلاء بلاء مصيبة كفك كل عدو كدكتين كريالي ديادو وحرته أو دفعه أما بلاء مصيبة كسو سعتي كهرتجد ديادو وحرته. باب كان لقب اللابو هره وحانو صامرني إنو شيخ ويري رحمه الله تعالى مركو كسوها لباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وحيري وشرح هذه الترجمة ما بعد من الأبواب. ترجمة عن وحي waxaa sharaxeeda faahfaahinteeda ay ku imaanaysaa war abwaabta ka dambayso dhan. Marka baabkan hadda aan joogna laga bilaabo ilaa kitaabku ka dhamaado kalimatu la ilaha illa allah macnaheedi ayuu sheekh sharxaya. Hore wuxuu uga soo hadlay tawxiidka ayuu ka soo hadlay halka markuu wuxuu ka bilaabayo dadkiisi aleen tawxiidka in alla loo sugo وإثبات كوي وحي كسور جودو الشركة إن لقد ديجنا والنفي جوا مركا إثبات كي بقصة هاللي هالك حكب الله النفي إنه شرحه مركا معنيه كلمة لا إله إلا الله أيو كل حجرها وحوه مري مركا مركو الشركة كهلا شرك الأصغر كي بقب الله كي وينين وكين دونا إن شاء الله تعالى سي مركا هدي كان يرلس لفهمه كان وين هذا وسهلا انتهي إن لس لفهمه waxaa kaloo hadda meesha ku jirto shirkiga weyn iyo shirkiga yar waa isku mid xagga shirkinimadu kaliya waxay ku kala duwan yihiin abis kana diinta lagaga baxa kana lagaga bixi maayo. Marka culimadu isku waxbay ka soo qaadaan oo aad buu u culus yahay shirkiga yar naftiisa. Waxaad arkaysaa shirkiga weyn ee akbarka ee diinta lagaga baxayo adilada ku soo aroortay ayagoo shirkul asghar u daliishanay من حيث الأصل بيكدليشان يانو هذه حاجة وداجنت إيو ألا غير في وحلو سمي إنو يهين وكم دي سيين كلي الدين تا كان لقا بحا مباشرة ستوصة كان لقا قام بحا يو أيي كوكا لدوين مرمارك قاركودنا وحديعي كرتو هدي وحيالك لا يصير راعان سيدي اعتقاد كي وحلامي ده كان يرى نفتيس إنو نغضى الشرك الأكبر إنو يسوب الدلو أيا دعي كرتو وين marka sheekhu wuxuu yiri waxa shirkiga kamida shirku al-asghar buu hada ka wada dabcan hadii aan i'tiqaad la raacinin lubsul halqati halqada waxa la yiraahdaa waxyaalaha biraha ay dadka xirtaan wa min hadidin aw dhahabin aw fiddatin ayaa laga sameeyaa wa silsilad waxa oo caruurta loo xiri jiri ama dumarka umasha loo xiri jiri waayahay oo marka loo xiranayo musiiba inay ka ilaaliso إيش إنك إلاليسو جينك معناها إلمها تابان لها أما قفك كل لها إنك أي إلاليني حيلا نعسي أمنسين مسماها عذر مركبة هايو أي كدو القادسة مسماها بلايا كسو صعتي عين إيه وحي لميده يكي إلاليني بي رميسنايين جاهلية دي عربتو سو برضو ولميده عادي واتقانانو أرنتاز عادي بي رميسنايين الخيدون وحاوي دونت وحيالها اللي هجاجي وحا أفوف أيدي جري أما الليلن أيدي جرينو كعمال اللي وحي رنجريو ama garbaha lagu xiran jiriyo ama dadka qaar kood dhaxda ay halka iyo dhabarka laga xir jiray ama maxog meesha u taqaanaan ayaa jiri haddana meelo badan way ka jiraanba way waxyaalahaas marka min shirki bay kamid yihiin shirki al-asghar ayay kamid yihiin maxay yeelay waa la barakaysanaa si ay macnaha waxa way arintaas ay u kariyeelaan sabab baa laga dhigaya way baabkan markii la marayo culimadu qaacida ay sheegaan qaacidaas waxay tahay وحيدا لا يجوز التبرك إلا بما ثبت الشرع بكونه مباركا أو بطريقة شرعية وحيدا إن لا بركيستو
ما بنانو wax in la barakaysto illa wixii sharciga uu macnaha ku soo arooray ama uu sheegay u tilmaamay inuu wax barakaysan yahay mooyaan shayga la barakaysanayo waxa la rabaa laba arimood in laga helo midkood hadii la waayo shirki uu soo bedelay ama asghar ha noqdo ama akbar ha noqdo arinta koowaad maxay tahay shaygan waa shay sharaacada ay sheegtay kitaabka ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala uu sheegay sunnada nabiga alayhi salaam ay sheegtay inuu barakaysiyo waa inuu noqdo mooyaan wax adigu jeebkaada aad ka tiri ama adigu sidaad u aragtay odayaashaada iyo wadaadadaada say u arkaan inuu shayga barakaleeyo ma aha waa in aayad quraan ah ama xadiis nabi alayhi salaatu wasalaam oo sheegay shayga inuu barakaleeyo waa in la helo qodobkaas waa qodob koobaad qodobka labaad waa bidariiqatin sharciyatin haddana markii la barakaysanayo shayga barakale qaab sharaacada ay ogashahay ay taqaano waa in loo barakaysto labadaas arimood hadii la waayo shayga shirki uu soo bedelayo ama bidca uu soo bedelayo ugu yaraan way tusaalaha waxa lagu fahmaa waxyaalo badan ay barako ku soo aroortay way waxyaalo barako ku soo aroortay waxa kamid ah kacbada inay barakaysato ilaahay sheegay subhanahu wa ta'ala quraanku ku sheegay ya inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan mubarak inuu ilaahay baa sheegay subhanahu wa ta'ala marka barakadiisa waxaan leenahay waxay ku sugnaatay fil kitaabi ahadiith badan nabiga waa kaga ansaxay alayhi salaam wasunnati labadana meerku ku sugnaatay marka halka waxaan ka ogaan inuu baraka leeyahay shardiga koobaad waa helin shardiga labaad waa bidariiqa sharciya qaab sharaacada ay taqaano oo ay fasaxday waa in loo barakaysto markii la ogaado inuu baraka leeyahay kadib way oo maxay tahay kacbadaas waxa noola sheegay markaad tagno حجر أسود كإن لا دنكذا أما لا دنكذا ركن يماني إن لا تابته وهكذا لكن هدي أنت عن أرضنا عن كورن محلي يراها كعبدي تربية دي يو حاجة وحكة دسن إما نار ذي مساجد ويحضن هدان أنت أوتنا أن نسكت صلاحنا أو أن كرر جنا أو نبرك يو لغة يلدعنا بالكورها يا واي مثلا ما هي intaan aruursano dhagaxyadii aan shiidano inaan leeqno cabno taa sax ma waxaan leenahay meesha inay barakaysanto waa la sheegay laakiin qaabka aan anaga hadda oo aad u gudutay waxa qaabka aad u gudatay ma aha qaab dariiqada waafaq shariicada waafaqsan qaab qaldan ayaad u sameysay marka labadaas qodob waa asaasi yaana la hilmaamin ardada way shay ka samxaniri waa in shariicada ay sheegto inuu yahay mubaarak oo kitaabka sunnada laga heli karo inuu barakaysiyo qodobka labaad asagoo barakeysay hadan dariiqo sharciya waa in loo sameeyo hadii labadan midna ay jirin hadii waxaas ama waa shirki ama bidca weey ka waran dadka qubuuraha barakaysanay ka waran dadka dhahay macnaha waxa weeyaan saalixiin dad kale aan macnaha saalixiinta iyo oo dadkaas inay wanaagsan yihiin ilaahay baa sheegay subhanahu wa ta'ala soo barahana alayhi salatu wasalaam waa uu sheegay way qaabka marka loo barakaysanayo waa qaab hadii shariicada waafaqsan waa inuu noqdo oo bimaana in markii la kulmano duceeyo ilaahay noo bariyo iyo waayahay oo hakada laakiin in la isku masaxo ama qubuurtooda car laga qaato taa sax ma waayahay taa marka waa laba qodob oo asaasi ah wiliga yaan la hilmaamin wax badanna waad kaga badbaadaysaa waxyaalahan marka had dadka ay xiranayaan oo xalqadan silsiladaas iyo biraha ilmaha lagu xiraay iyo umasha lagu xiraay iyo xoolaha lagu xiraay iyo wixii lamid ah waayay sabab bay ayagu uga dan leeyihiin sabab ilba lagaga badbaaday jin baa lagaga badbaaday cudur haay baa ku deynay waxyaalaha noocaas waxay dheen marka culimadu shaygan inuu sabab yahay waxa lagu ogaan karaa laba midkood mid koowaad in laga waan dariiq sharci sharciga ba sheegay shayga inuu sabab yahay lagu daawoobahay sida malabka iyo wixii lamid ah quraanka akhrintiisa iyo lamid ah malabka marka waxa la yiri fihi shifaa'un lin-nas quraanka waxa la yiri nunzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin taawa marka mid shariicada sheegtay waa inuu sabab yahay lagu daawoobo xagarig sababka lagu ogaan karo waxay dhaheen tajriba in shaygan laanaha tijaabi hore loo soo ogaaday inuu yahay shay daawo way shayga marka daawada noqonayo oo tajribada lagu ogaayo waxay dhaheen waa inay shardi yahay saameyntiisa wax muuqdo oo marka la garan karo
saamayntu u yeelanayo inuu daawo yahay lagu ogaaday inuu sabab wax ilaahay ku caafiyo inuu yahayna la ogaaday waa inuu yahay wax muuqdaa la rabaa wax muuqdo banaanka yeelo weyn sida kaniini kalato maalan kaniin baad liqday waxaa lagu yaqaanaa kaniinka xanuun baabiyaha waad liqday maalan tusaale camal waa wax muuqdo oo markiiba qofka waaba fag waa ficnaanaya laakiin bir laysku xiri ama dun laysku xiri maxaa muuqdoo laga garanaya inay daawo tahay inay kala ma jirto waaya waxyaalaha dadka iska rumaysan yihiin oo ayagu marka ay qalbigooda isku qancinayaan oo markii birtan lagu xiraanba daawoobi waxyaalahaas wax macno leh maaha laakiin wax muuqdo oo banaanka yaal ayaa la rabaa baabu wuxuu yidhi min ashirki waxaa ka mid a lubsu lxalqati silsiladaas iyo birta oo la xirto iyo walkhaydi dunta ama liilanka iyo wanaxwi maa wixii lamide maxaa loo xiranaa lirafci lbalaa balaayo haysa qofka markaa haayo balaayo ku degan ooba hayso in lagu kor yeelo in laiskaga dulqaado aw dafci ama mid kusoo socota in lagaga hortago rafciga marka waxaa weeyaan wixii oo qofka markaa haayo in laga qaado waayahay dafcigana waxaa la dhahay wax kusoo socday in laga hortago wahaakada wa qowli llahi tacaala wa baabu qowli llahi tacala uu baab yahay ilahay muxuu yihi qul waxaa tiraa nebiyow afara'aytum bal iiga warrama maa wixii tadcuuna aada baryaysaan ood u dhawaaqanaysaan min duuni illahi alla ka sokow in araadani allahu alla haddii ula doono bidurin hadduu ila doono hal hunna ma yihiin kaashifaatu durihi dhibka alla uu ila dooni oo kuwa fayda ma yihiin waxay faydi karaan male wey waay qul waxaa tira afara'aytum bal ka warrama maa tadcuuna waxaad u yeeraysa maada waa mawsuulo waxaa waye cumuum baa ku jiro wax walba malaa'ig noqotaa qabri noqoyaa weli saalix noqoyaa rasuul noqoyaa wax walba maa wixii tadcuuna aad u yeerinaysaa min duuni illahi alla ka sokow min duuni illahi gayr illaahi waay ama maca allaahi ama alla la jirkiis labadaasay ayay inta badan ku timaada in araadani allahu alla haddii uu doono bidurin alla haddii macnaha ila doono bidurin dhib hadduu ila doono hal hunna ma yihin kaashifaatu duri kuwa faydaah aayadda marka maclushaahidku sheekh u keenay waxay tahay raximah allahu tacaala maadaama waxyaalihii loo yeeray oo maxaa la yidhaahaa qaarkood laga yaaba bini aadan nool inay yihiin ama ambiye ha noqdeen ama bini aadan kale saalixiin weliya ha noqdeen ama qaarkoodba malaa'ig inay yihiin ay dhici karto hadday waxbaba qaadi karin oo dhibku allow ii keenay subxaanahu wa tacaala ay waxba ka qaban karin bir leysku xiri iyo dun leysku xiri maxay qabanaysaa wey maxaa ma qaban karto marka waxay u yaqaanaan marka waxaa weeye tanbiihu laclaa biladnaa weyn ama cagsiga marka wax yar wax culisba oo aada u sarreeya baa la sheegaya si lagugu baraarujiyo wax hooso marka hadday malaa'igta iyo ambiyada iyo wixii loo dhawaaqanay ay waxba qaban karin oo dhibka alla keen ay waxba ka qaban karin maxaa bir iyo dun iyo ay qabanayaan wey ma jirto wey waxay qabanayaan mala weyn marka tadcuuna bimacnaa adducaa huna alcibaada wey الدعاء المسألة الدعاء العبادة يقيب سنتا وين maxaa yeelay way baryi jireen asnaamtooda quraysh iyo wix lamida way u yeeran jireen way u dhawaaqan jireen way u cibaadaysan jireen maxaa yeelay nadar ay u samayn jireen gowrac ay u samayn jireen way u rukuuci jireen way u sujuudi jireen ducaa ulmas'alana way u samayn jireen oo wixii dhab ku yimaado waayahay inay ka dulqaadaan way weydiisan jireen hadday doonaan waa la gartay وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي وحو أرك الرجل نبو أرك رجل كاسو في يدي قعنتي سيكون سوغنت حلقة سلسلة أو من صفر وياهي النحاس اللي قسمي أما بر اللي قسمي فقال النبي وحير ما هذه تنم حيهد قال وحير من الواهنة عذرك واهنة اللي يراها أيال اللي حري فقال النبي وحير عليه الصلاة والسلام انزعها سيف فإنها أيضا لا تزيدك كوم كرنيس إلا وهنا تبردر مويه فإنك هذه لو مت هدي أدمت وهي عليك أيضا دوشك هاga حرا أيضا كوgu حرا ما أفلحت أبدا ولقى ما أذى الليبانتين صحابي عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أيا وحولي النبي وحو أركي رجل كاس روايات قاركود وحي تلماما إنه أساق أحد
ومركا وإسكي إبهامي وقري وين نينكاس oo xalqad ay macnaha bir ay ugu xiran tahay gacanta xagga cadudda ama jeeniga ay ugu xiran tahay markaas wuxuu yiri nabigu kaleey ma haadihi tan maxay maadan marka waa ma istifsaar oo macnaha su'aal buu nabigu weydi mas waa inkaar oo waa ku inkiray war waxan maxay kala tay ka dhigan tahay culimada isku haya laakiin inay inkaar tahay baad moodaa inay xoog badan tahay xadiidkan waa laga garan karaa way markaas wuxuu yiri min alwaahirati baa laga xiri waahinadu waa cudur dadka ku dhaco bay culimadu sheegaan waa cudur oo bimacna garabka imeelahan iyo xibanta meeshan oo garabka iyo cududdo meelahaas dadka kaga dhac waa la yiraahdaa ama waa cudur jirka oo dhan gala oo qofka daciifi oo qofkii macna wax tabar aan lahayn oo dhiig uu ka dhamaaday camal ka dhigo waa la yiraahdaa marka cudurka noocaas ah yaa laga xiri buu leeyahay nabigu wuxuu ku yiri cali sam iska siib maxaa yeelay kuma kordhinays ilaa tabar darri mooyaan wax kale kugu soo kordhinays haba yaraata mala waaye tabar darri ee cudurka kugu riday hadii lagaaga xiri ayadaad babalaay iyo tabar darri ka sii qaadaysa hadii aad waxa kale la yiraahdaa dhimatano ayadoo kugu xiran oo qabto ma aflaxta abadan weliga ma aad liibantay macnaha maxaa weeye qof shirki ku dhex sugan baa tahay asamar kaliya أن النبي رأى وحوارك الرجل أن في يده حلقة يكسوها من صفرنا فقال النبي وحير ما هذه تنمحيتي قال وحير من الواهنة حنون كاس أيال لي جحري تبردر هذا صح فقال النبي وحير على سينزعها السيب فإنها إذا لا تزيدك كومكر إلا وهن تبردر مويا فإنك هذه لو مت هدادمت وهي عليك ما أفلحت أبدا ولقى ما أذى الليبانتين وايا ولقى ما أذى الليبانتين بمعنى الليبان كاملة ما أذى الليبانتين بالله وضع وايا ليبان كامل ما أذي ليبان تمحيل الشركة أصغر بات كجرتها وي هدي مركي اعتقاد راعه والرومين أي راعضه هدي مركي واب الشركة الأكبر أيضا راو أحمد باوري حديث كان بسند لا بأس به سند عن نبلهن علماء واسكو خلافين حديث السند كيس لكن سيدا هاد وشيق وشيقي والسند كحديث كينا نبلهن سيدا سأيار راجحة علماء قاركو ضعيفيان واجران وين وله حوص نادي أحمد عن عقبة من عامر وكور مرفوعا سوى عقبة النبي وكريال عليه السلام مرفوع كدقاي من تعلق قفك اسكحر تميمة حرسي قرداس فلا أتم الله له إلهي أمر ما استردنتيس إلهي مقارسيه وحي معناها ومن تعلق نكي اسكحر ودعة على له فلا ودع الله له وايهي إلهي سبحانه وتعالى أرنكيس حسلوني إيو إلهي أقوم أدقوه إلهي حالديس أمدنجيو هل كان الله أري موضوع كلا لغاها هالي تميمة إيو ودع تميمة دو حاوي وحرسي حرسي وإلماها اللغو حرو أما حوالها اللغو حرو مدادك وين قار كميد باي حرتان كاباب كيسو مرد مؤمن دونا وفافاهين دونا شباب الرقى والتمائم شيخ أسابا بيسان دونا إن شاء الله تعالى واي مركو حالي التميمة نينكي حرتو وحرتو مركا في جلب النفع ودفع الضر واي وحرتو إنay faa'iido u soo jiido xaggana ay dhib haayo ay ka dulqaado ama dhib ku soo socday ka hor istaagto waayahay ilaahay arintiisa uma dhamaystiro waa arinkaas waa ducaa calayhi habaar way noqon kartaa arinkiisa ilaahay uma dhamaystiro way noqon kartaa waxa kale noqon kartaa khabar bimacna ilaahay arinkiisa uma dhamaystirayo waa oo khabar uu nabigu ka khabarayo ka waramayo xaaladiisa dadku ugu waramayo qofkaas arinkiisa ma dhamaystirmayo sidoo rabi uma noqonayo la socod ay tahay وايا ودعادنا وأليلو سومالو waa yaqaanaan waa bahal badda iyo biyaha laga soo bixiyo dhagax yar weeyaan oo guryaha la dhigto waayahay ayadoo marka ay faa'iido leedahay oo hata dhaqaalaha guriga ay kordhinayso wixii la mid ah dadka qaar kood ay rumaysan yihiin waay ama caynta iyo wax ilmahan waa loo xiro caynta iyo jinka iyo waxaas ay ka ilaalinayaan dhahan man ta'allaqa tamimatan qofki isku xiro qalbigiisa ku xiro فلا أتم الله ما جيركيس كحر فلا أتم الله له إلهي أرنتيس أمر دماستره ومن تعلق ودعة على نكي حرتون أسكو حرنا فلا ودع الله له وإيهي إلهي سبحانه وتعالى أرنتيس مد حسلون إلهي ومردقه دعاء علينا وينغنك معنا في ودعة وسكون قف أرنكيس وحسلون يا إلهي كمردقه وفي رواية ماشي وفي حديث آخر على وضع
حديث كلا أو عقبة لجوري من تعلق تميمة قفكي تميمة اسكو حرا قرداس اسكو حرا قلبي اسكو حرا أو فايدي سي ديفتي اسكو حرا فقد أشرك شرك بقفك سمي حديث كاسم حديث صحيح وي فقد أشرك شرك أي قفك قرع يسمي شرك الأكبر أي نقانا هديق والرميسين هاي waxaanu isku xiri ayada ahaanteeda xanuunka ha inay ka qaadi karto oo mashii'a ilaahi iyo awood alla inay ku xirneen waayo xanuunka soo socdan inay ayada nafteeda ka difaaci karto hadduu aaminsan yahay taa waa shirka akbar wey culimaduna war kamaba qabaan waayo laakiin hadduu u arko sabab inay tahay min al asbaab ah oo asbaabta lagu caafimaado inay kamid tahay hadduu u arko shirku asghar waa maxaa yeelay waxaan wax sharciga islaamka ومعناه سبب كدغ مها هورن waxa uu soo sheegnay shayga inuu sabab yahay waxa lagu ogaan karaa ama dariiqo sharciga lagu ogaan karo oo shariicada ba sheegtay kitaabkii sunnada laga ogaaday isma tajriba ahaan lagu ogaa sida kaniinada iyo wixii la midka labada midna ma marka inay bir wax caafiso ama xirsi wax caafiyo labada midna lagu ma ogaanin way saadaraday marka shay oo shariicada ayna ka yeelin sabab ayuu qofka sabab ka yeelay marka shirku asghar أيوة كجرة دان اعتقاد إيو خمين أي لسعنين ولأبي حاتم وحاوصه نادي عن حذيفة وكوري سحابي قاس أنه حذيفة رأى رجل نبو أركي في يدي قعنتيس وكسوغين خيط ضن ننحرسي وقعنتك حرين يا أيوة أرك من الحمى قندت درتين من الله حري فقدعوا كجري وتلا وحون أخري قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بدن كوضا مروا مينين بالله الله إلا وهم أيوة مشركون الله وحلو ذا جرى مويان آيات أيو كدو الأخري أثر كان حذيفة سند هانتيس أبو حاتم في تفسيره وقصة صاري في سورة يوسف وضعيف لكن حذيفة أثر كلاو صحيحة أيا كسوغن أثر كلاو صحيحة أيو ليا مسألة عن قصابسا وين marka hadii ka lagu xoojiyano way dhici kartaa marka nin buu arkay gacanta ay kaga xiran tahay dun ama leelanka uu kaga xiran yahay qandha haysana lagu xiriyo xumma markay miimta la shido waa qandho xuma marka la yiraahdo oo qaayna ama ta gadaal laga raacay ama miinta aan la shidino horiyaan u soo marnay ayadu waa qaniyo wax qaniin sun leh inay ku qaniinana la dhaha way waa ka jari xoog boo markii waa ka jari aayadan ayuuna ku dul akhri maxay yeelay waxay ahayd xadiidkii abu wuxuu ahay nabigu calayhi salaam man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi somen gacantiisa waduu ku zuulin karo faqad waa ka jari nabiguna calayhi salaam waxaan soo marnay ninkii wati asna inuu amray inuu iska siibo tuuro way annahu ra'a xudayfa ra'a wuxuu arkay rajulan nin oo fi yadi gacantiisa khaydun dun ay ku sugan tahay ama xarag ugu xiran yahay min al-humma qandana looga xiri faqada'u wa kajari wa tala qawlu ayu aqri wama yu'minu aktharuhum billahi badan kooda alla ma rumaynayn illa wal hal hum ayagu mushrikuuna ayhiin mooyaan kuwa alla wax la wadaajina marka waa aayad ku soo aroortay shirkul akbar oo shirkul asghar loo daliishaday way dad badan marka alla si dhabay uma rumaynayaan illa haday alla rumayaan shirkun bay ka garboodaan wasida hada macnaha waxa way jirto way oo farq badan ay sameeyaan alla rumaysiin waayahay cibaadad bay la imaanayaan laakiin shirkina kama badbaadayaan awliya alla adeeg iyo qabri macnaha laga soo qaatay carra iyo waxa aan ilaahay barako ku sheegano la barakaysta iyo waayahay ciidan ilaahay subhanahu wa ta'ala ad idmin in loo yeerto iyo ka dhamaan laayiin واي فيه مسائل بابك مسائل باكو سوغن بو شيخ رحمه الله تعالى الاولى مساله كواد حوي التقليد اتكين ويا اد لوغو ادكيو وعدك ادلك لوغو ادكيو في لبس الخل حلقتي ويا سلسله ايبرتا خرشدهده اي الخيط الدنت خرشدهده اي ونحوي ما وحي لميده لمثل ذلك كاس وح لميده لو خرتو مثل ذلك اسم شرح ودا لرفع البلاء او دفع واي بلاayك ku haysa in laga dul qaado ama waxyaalo balaayo kugu socdo in laga horsaag labadaas sababtood in loo xirto dunta iyo maxaa la yiraahdaa birta in hadalka lagu adkeeyo bimaana aad loo inkiri way waxa laga qaatay hadalka nabiga alayhi salaam inzi'ha la taziduka illa wahna law mutta wa hiya alayka ma aflahta abadan bali walu adkay marka الثاني مسألة لو كان فايسني وحاوي أن السحابية سحابي لو مات هدول انتو وهي عليه أيضا كود معناها وقبض ودوشي سيكون حرنتها ما أفلح فيه معناها ما اللي بانين ما أفلح ما اللي بانه فيه حديث دوسا كود ما اللي بانين وايه فيه وايه
وحير أن السحابية لو مات هديد وهي عليه أي كدل سجنتها ما أفلح ما الإيمانين فيه وحاكسه المركب باب كان شاهد مرقاتي لكلام الصحابة هذا الكود ومرقاتي وياه ومحيدهن أن الشرك الأصغر شرك أصغر كأير أكبر وكوي من الكبائر دنبيه دواوين ومهم جدا وين شرك أصغر كوايري هايو دينta lagaga bixi maayo haddaan ictiqaad la soconin marka lagu leeyahay mar walba waa inaad ogaatid dambiyada kale ilaahay laga galo subxaanahu wa tacaala oo kabaa'irta loo yaqaano wuu ka weyn yahay mar walba waa ka sarreeya isaga marka ha fududaysanin wey ha fududaysanin maxaa yeelay maadaama uu shirki yahay asqarnimadiisaas iyo waayarigiida ha ku qaldoomin ha ku kadsoomin marka shirkul asqar wuxuu u dhexeeyaa shirkul akbar iyo dunuubta waaweyn kabaa'irta ayuu u dhexeeyaa halka ayuu joogaa dunuubta waaweyn wuu ka sareeyaa waa ka dambi badan yahay waa ka weyn yahay shirkiga weyn ma gaarsiisna waa ka sokeeyaa labadaas marka u dhexeeyaa hadalkaas ayuu macnaha inuu ayuu marqaati u yahay waa hadalkan saxaabada ay dhaheen way saasayden marka saadaraad Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wuxuu dhigi lian ahlifa billahi kadiban inan alla ku dhaarta anoo been sheegay ahabbu ilayya من أن أحلف بغيري صادقا وايها أنا بين شيء إن الله كدارته باو حليقة جعل بدين أنك جعلها إن غيرك كدارته أنا هو شيء حي الشرك الأصغر الحلف بغير الله والشرك والشرك وي صاد رادد ساسو هجرة رحمه الله تعالى الثالثة مسألة عن كفاية السنة وحوي أنه لم يعذر بالجهالة جهل لو معذر دارين بول صحابي قاز جاهل بكاه أرنتها كذا لما دهينه ومعناه وحويا لوجم عذر تاني حيا لي جهله ولا كلا قاعدة وين سيدا معناه هذا مطلق ما هي مرة قاركود أو وحيالها قاركود لوجم عذر داري كر أياك جرو سيدا هدي معناها مردو صو إسلامي مسماها ما العلماء ده كفوا وكم معناها مركب وكبر باري وين وحيالها سؤال لوجم عذر كره لكن منها دي سجرين ماي الرابعة مسألة أنا إسكتها مسألة أنا أصلا الرابعة مد أفراد أنها بحشان أنصار شيء لا تنفع في العاجلة الدنيا محبك ما أنفعس بل تضر وإليس لقوله صلى الله عليه وسلم دليله لا تزيدك إلا وهنا النبي يجري ها الدنيا أنجونا حتى آخر كبداية الدنيا حتى وحبك وترين صدر النبي حير لا تزيدك إلا وهنا الخامسة مسألة شان كفى يسوي حوا الإنكار إن معناها الإنكار للديدو بالتقليد ولي بقى أتكين مع التقليد وين أتكين أيضا يلا صعته على من فعل مثل ذلك وحا لميد قفك سميه إن لغو إنكره ولينا لغو أتكيه السادسة مسألة لحاد حوين التصريح عدين لعدي بأن من تعلق شيئا قفك شيء واسكو حره وكيل إليه إن لا تلا سارنا شيء هذا اسكو حرته وأضو أركتين وأسقف لبي داف بوكوها إلهي نسو كو تلا سارنا سبحانه وتعالى السابعة حول مسألة تضباط التصريح عدين بأن من تعلق تميما نك اسكو حرام حرته فقد أشرك شرك إنه يسميه الثامنة مسألة جديدة حول كفاية سنينه أن تعليق الخيط دون تاسي وحا إن لحرته من الحمى قد لغا حرته من ذلك الشرك شرك غاية كمته وين محايل حذيفة وابكي أدلي شدي آيات وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وصمر التاسعة مسألة تقال حوي تلاوة حذيفة الآية حذيفة أخرنت آيات أخري دليل وحي دليل أتاي على أن الصحابة يستدلون إن أدلي شنجرا بالآيات آيات التي آيات كصو في الشرك الأكبر شرك وين كسقنات وكسو أرارتي على الأصغر إن أدلي شنجرا كما ذكر ابن عباس في آية البقرة سدو كشيء حذيفة آيات وحود لي شدي وهي الشرك الأصغر أي معناها وحود لي شدي آيات الشرك الأكبر كسو أرارتي صحابة وهي قانين وهي في سورة البقرة مركو عبد الله بن عباس آيدي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون مركو في السراي بو معناها أدلي شدي شرك جاس وقوف السري العاشرة مسألة طبعا كيف يصير محوي أن تعليق الودعي على إن لحرته من العين اللي حرت من ذلك الشرك سيكمته 11 مسألة كوي طبعا حوي الدعاء إن لها بار على من تعلق تميمة نك حرت إن لها بار ولو أباره أن الله لا يتم له إلهنا الرميس والمسترين ومن تعلق ودعة على لأنك حرتنا فلا ودع الله له أي ترك الله له الله أرنتي سأقول تقويا